Hansi Flick oo si lama filaan ah u shaaciyay cidda burburin doonta Real Madrid kulanka weyn ee El Clasico. Tababaraha Barcelona Hansi Flick ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in Lamine Yamal ay ciyaartoy dhawaan dhaawac kaga soo laabtay kooxda ay door weyn ka ciyaari doonaan kulanka adag ee El Clasico ee ka dhanka ah Real Madrid. Waxaan aaminsanahay inaan awood u leenahay inaan garaacno Real Madrid ayuu Flick ku sheegay shir jiraa'id kadib markii ay kooxdiisu 6-1 ku xasuuqday Olympiacos tartanka Champions League. Hansi Flick ayaa intaas ku daray, koox fiican ayaan leenahay, laba ciyaaryahan ayaa soo laaban doona, guushan caawa waxayna siisay kalsooni weyn. Wuxuu intaas sii raaciyay, Lamine Yamal wax dhibaato ah ma qabo, isaga iyo anagaba guusha maanta aad bay muhiim noogu ahayd. Waxaan hubaa inaan arki doono Lamine Yamal oo ka duwan sidan Axadda. Wuxuu had iyo jeer muujiyaa marka ay timaado ciyaaraha waaweyn. Barcelona ayaa wajahaysa Real Madrid kulanka El Clasico, iyadoo guul ay ka gaarto Real kula wareegi doonto hoggaanka La Liga. fiidnimo wanaagsan saaxiibayaal, warbixintaasna waxay qayb ka tahay barnaamijkeennii bandhigga ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkana la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share garayso. haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.